magaalada Minneapolis-na gabar Soomaali ah ayaa xafladda qalinjebinteeda ka qayb gashay saacado yar uun kadib markii ay umushay. sheekadan waxaa Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade. Zainab Cabdallah waa hooyo Soomaaliyeed oo 2 sano ee la soo dhaafay shahaadada masterka waxbarashada gaarka ee la xiriirta carruurta qabta xanuunka autism-ka ku diyaarinaysay jaamacadda St. Thomas ee magaalada St. Paul. Zainab waxaa isugu soo beegmay 2 farxadood oo kala ah ka qalinjebinta jaamacadda iyo dhalitaanka gabadheeda labaad, waxaana u dhaxaysay in ka yar 24 saacadood. daalkii iyo xanuunkii umushu kama aanay reebin Zainab inay ka soo qayb gasho xafladii qalinjebinta ardayda ee shahaadada lagu gudoomayay. alxamdulilah waxaan dhalay Friday-dii 8 habeenimo. graduation-kaygana wuxuu ahaa Saturday-dii ku xigtay. dhakhtaradeyda la tashtay, alxamdulilah waa caafimaad qabay, beebiyadu caafimaad qabtay. waxaan go'aansaday inaan graduation-ka aado, way farxad bi ahayd, familigana farxad bi u ahayd. Zainab Cabdallah magaceeda ayaa loo yeeray waxaana la guddoonsiiyey shahaadadii ay u soo dhabar adeegtay. Zainab waxay u ahayd farxadda qalinjebinteedu mid ay ku ilowday xanuunkii hayay, waxayna maanka ku haysay in kasoo muuqashadeeda munaasabadda qalinjebintu ay dhiirigelin u tahay haweenka Soomaaliyeed. farxad baa ka weyneed xanuunka ay hayay. farxadda awgeed waxaan go'aansaday inaan graduation-ka aado oo tuso familiga iyo Soomaalida khaasatan dumarka inay wax kasta qaban karaan. wax kasta qaban kartaa, xanuun ama xanuun la'aan, uur laho ama lahaanin. waxaan ogaaday inuu cilmiga education-ka aad important u yahay. Abdul Maxamed waa sayga Zainab Cabdallah, waxa uu aad ugu faraxsan yahay labada guul ee qoyskiisa, walow uu dareensanaa dhibkay mudanaysa xaaskiisu maalinta qalinjebinteeda oo saacado uun ka hor ay umushay. haddana waxa uu xasuustaa waqtigii u hurtay waxbarashada iyo saacadihii ay ku dhafri jirtay akhriska iyadoo xamilo ah. waxaan ogaa xaaskayga 2 sano oo la soo dhaafay dhibtii ay martay, ama siba sanadkii ugu dambeeyay run ahaantii ee winter ahaa, 2 qayb kala aadaysay Minneapolis campuska ku yaala iyo campuska St. Paul. marka maanan jeclaysan inaan ka hor istaago maalinkaas farxadeeda. waana weydiiyey say dareemayso, waxay tiri waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo xafladaas weyn, waana ku taageeray. Zainab Cabdallah ayaa qorsheynaysa inay sii wadato waxbarashadeeda, waxayna maanka ku haysaa inay isla jaamacadda St. Thomas ku diyaariso shahaadada PhD-da. waxaa qorsheynayaa biidnillaah inaa PhD-gayga dhammaystiro, inaa community-ga 100% xoog saaro, ina caawiyo waxyaalihii soo baranay, ina runta u sheego. caawimaadu rabaana ina caawiyo, luqad ha noqoto ama iskuulaadka insha Allah ina la joogo oo resources ka caawiyo waalidiinta. Zainab Cabdallah ayaa jaamacadda waxaa kala qalin jebisay 8 qof oo kale oo Soomaali ah oo shahaadada masterka ku qaatay waxbarashada gaarka ah ee la xiriirta carruurta qabta xanuunka autism-ka, kuwaasi oo jaamacadda St. Thomas ay siisay deeq waxbarasho. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.